dowladda Soomaaliya marnaba kama daalin sidii dalkooda dib loogu soo celin lahaa muwaadiniin oo si sharci darro ah ugu xiran meel aan dalkooda ahayn. Caydiruus Maxamed Aadan, Maxamed Iikar iyo Maxamed Axmed Wacays, saddexdan muwaadin ayaa waxay ahaayeen kalluumaysato ka jallaabaneysay xeebaha Muqdisho ayaa bartamihii sanadkii hore ku lumay badda gudaheeda kadib markii ay dabeelo ku dhufteen. wasiirka dekedaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maryan Aweys, wasiirka maareynta musiibooyinka iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho muwaadiniintan oo Muqdisho ka soo degay maanta. Nasiib wanaag sanad kadib dowladda Soomaaliya ayaa markii ay heshay xogtooda raadisay halka ay ku dambeeyeen waxaana lagu guuleystay in laga soo sii daayo xabsi ku yaala wadanka Sri Lanka. waxa inooga sheekeeyeen xaaladii ay kala kulmeen halkaasi. magacayga waxaa la yiraahdaa Caydiruus Maxamed Sheekh, anigoo ah nin kalluumaysato ah oo dhib ku dhacay. dhibkaas oo ah anigoo kalluumaysanaya shaqo tagay ee matoorkii iga halaabay badda ay qaaday. badiina waxa markay ii wadi 3 bilood kadib ayaa waxaan heleen dawladda Sri Lanka. dib badanna badda waa ku marnay. alxamdulillah ilaahay waana badbaadiyay. Lankan qabati markaasii laandweelan oo laandweelan waa la sugudbi booliska xabsiisa geey la tadoobil miyaa ku jinni markaas oo Soomaaliya dadka waa wanac waaye markii wajii waxaan tuufnay oo tuufay waana sii tagay sarta beem ku sheegay waana sii tagay markii midkii kale hadana waa ka waan arkay markii ilaa midkan waa baniday oo midkii kale hadana noo soo darsamay ilaa midkan ana xabada waan arkay waana dhaafay midkan mana dhaafo markii hadana caawineenin. xildhibaanadii soo dhaweeyay qaarkood ayaa xukuumadda ku amaanay doorka wanaagsan ay ugu adeegayso bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan maxaabiista Soomaaliyeed oo wadamo kala duwan laga soo celiyay. waxaan mahad u celinaa runtii wasiirka dekedaha Maryan Aweys oo runtii xubin weyn ka qaadatay si ku soo noqon lahaayeen caruurta iyo xukuumadda oo dhan way ku mahadsan yihiin runtii. waa arkaysaan caruurtanadii qaar badda qaadayso, qaar tahriibaya, qaar dhimanaya, qaar sameeynaya. hadda saddexdii dhalinyarada arkayseen waxa ay 91 maalmood waxay ku jireen badda dhexdeeda oo ay biyo la'aan cunto la'aan haysay. wasiiradda ayaan horta si gaar oo ay ugu mahad celinayna oo runtii xil weyn iska saartay oo anaga xiriirinaysay dawladda maxaan ku raadaa India iyo meel kala xiriirinaysay. annaga waxaan leenahay wiilasheena mahad ilaaha iska leh kasuko dawladda iskale oo ayada aad isaga xil saartay. wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda xukuumadda federaalka Soomaaliya Maryan Aweys Jaamac ayaa u mahad celisay safaaradda Soomaaliya ee dalka India, xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo shirkado Soomaaliyeed oo gacan weyn ka geystay soo celinta muwaadiniintan. dhinaca kale waxa ay hoosta ka xariiqday wasiirka in ay ku raad joogaan dhalinyaro kalluumaysato ah oo si xaq darro ugu xiran dalal kale. kuwa kale oo iyagana ku maqan jasiiradaha kale oo Maldives sidana loo sheegay ayagana xiriirkoodan raadinayna haddii Ilaahay yiraahdo waxaan ka shaqeyn doonaa insha Allah in ayagana wadanka ay ku soo noqdaan. Muuse Cusmaan Abtow, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.